barakaatu mudana gudoomiye iyo garsoorayaal dhammaan bulshaweynta halkan joogta horta ilaaha mahad ku leh meesha nabad lagu wada kulmiyey mudana garsoore waxaa liigu soo eedeeyey inaan dilay xaaskayga taasoo ah been abuur waxnana aysan ka jirin annaga dad muslina ilaahay naga dhigay waxa ugu weyn wax lagu xukumana waa shareecada islaamka aniga maanta horta wax lagu xukumo oo maanta dambi aan geystay ma jira ayaan leeyahay balse waxaan qabaa in arinteeda loo bandhigo shareecada islaamka maadaama qof muslim ahay xaaskaygana muslimada ay ahayd eheladeena ay yihiin labada ehelba muslimiin shareecada islaamkana markasta qof gooniya uma hiiliso kaliya cadaaladda iyo maxay ahayd sida saxda ay wax u jirtaa taa markii laga soo tago xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliyeed wuxuu igu soo eedeeyay in aan dilay xaaskayga shidaal aan ku bilbilay horta taa waa maxay ahayd waa mala awaal waayo hadalka markuu leeyahay goobjoog moose ahayn maxay ahayd wax CCTV camera oo ka arkay ma aha kaliya qiyaastiisa iyo maxay ahayd halku beegiisa un baa sida noqday qofka muslina shareecada islaamka ku dhashay in malo lagu xukumo dilna lagu xukumo laguna dilo dabcan mudan garsoore adiga iga yaqaan wax fiican inaysan ahayn maxkamadii horena waxaa lagu xukumay dil toogasho ayadoo aan lahaynin wax cadeyna oo maanta dhihi kara sida cali ayaa dilkan geystay ayadoo lahaynin marqaati dhihi kara falkan soo geysanaya markay uguna marqaati furi kara iyo kuna dhaara kara marqaati walba la keeno wuxuu ka tarjumayay waxaan arkay gabadhii saana ama dhacdada ka hor ama dhacdada kadib mudan garsoore waxaan arkaa waxa lagu tilmaamay in si wax kama jiraan ahayn hadda tusbaxan awto waa 100 xabo haddaan iraado 70 xabo waaye wax suurtagal miya waa may waxaan kaloo arkaa maxay ahayd maanta dhibka dhacay waxa lagu eedeeyay inaan dilay xaaskayga tusaalahan haddaan ku siiyo mudan gudoomiye maanta guriga hortiisa ama qofka gurigiisa hortiisa god ka shiday qashin ku shubay oo gubay qof wadada soo maray dadkii ku dhacay qofkaas asaga ma dilay waa meesha waxaan arkaa mudan gudoomiye kiiskii in la siyaasadeeyay oo maxay ahayd qofba qaab gooni ah oo u qaada dhigayo waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed in Ilaahay ka baqaan horta marka uu horeyso qof gooni ah oo god la galay ma jiro qof walba qabrigiisa ayaa sugaya maanta haddii la helo marqaati dhahayo sida cali ana arkay markuu falkan geysanayo ama CC camera laga helo ama maxay ahayd qaab kasta waxaan ogolahay xataa inaan barisin oo maanta shareecada islaamka lagu fuliyo laakiin dambi aan lahayn mudan garsoore yaa dusha laga saarin maanta inaan mudan garsoore ayaysan noqdo xaaskii lagu tilmaamay inaad dilay oo wuxuu Ilaahay qoray lixda arkaan iimaanka ayaa kamida oo bil qadar khayr iyo shar iyo qofka islaamka inuu aamino aniga waan aaminsanahay qadarta khayr iyo shar batay tahay adigana mudan garsoore Ilaaha ku nimcadan ku siiyay maanta inaad garteeda noqdo oo maxay xaakimkayga noqoto waan kaaga mahadcelinayaa ilaahayse adina waxaan ka codsanayaa mudan garsoore si xeel dheer maxay ahayd shareecada islaamka waafaqsan inaad igu xukunto adigu igu xukumin sida maxkamadii hore ayada marqaati leeyihiin cadoon leeyihiin qaraar leeyihiin si mala ah qofka inna aadanka maanta qaab wax u dhaceen adigana qaab kale u fikir kartaa qof walbana waa sidaas marka qof inna aadana oo naf leh Ilaahay karaameeyay maxay ahayd mala in lagu xukumana sharci qaanuuneed iyo sharci islaamba midna horta ma dhigayo waxa kale oo soo jeesanayaa bahda saxaafadda oo maalintii dhibkan dhacay ilaa maanta wax aan jirin bulshada maxay ahayd ku wacyi gelinayo
waxaan leeyahay qof walba saxafiya waxaa la rabaa bulshada inuu u dhexeeyo oo qof gooniya ama dad gooniya ama dana gooniya u janjeersan waaqica dhabta oo jira bulshada oo ka dhaadhiciyo laakiin waxaan jirin ama aan dhicin si kale bulshada ugu fasiro way aaminayaan waayo ay guryahoodii joogaan telefono unbay ka fiirsanayaan marka waxaan leeyahay saxaafadda ilaahay ka baqa dad dhalinyaraad tihiin maanta dhibkan igu dhacay beri ka maalin qof idin ka mid uu ku dhici karaa qof walba Soomaaliyaana ama qof walba Muslimaana adduun intuu joogo waa la imtixaanaya wax walbana ay ku dhacayaan marka been abuurka hal iska daayo waxaad ogeyn ka been sheegan sida saxda ah dhexdhexaadka uga hadla waana mahadsanyahay mudan garsooda mahadsantihiin dadka siyaasiyiinta waxaan leeyahay horta ilaaha xilka u doortay labada helba dad siyaasiyiin leeyihiin dhan walba noqoto waxaan leeyahay ilaaha horta marka u horeysa laga baqo maxay ahayd fidno yaa la kicinin waayo fidnada wax ka daran horta adduunka korkiisa imaada ma jiraan waxaan leeyahay fidnada yaa la kicinin dadka yaa la isku dirin waxaan jirin dadka yaa laga dhaadhicinin qof walba siyaasi amaantay meel kastoo iga daawanay waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo kiiskaygana siyaasadda ha laga daayo si shareecada waafaqsan oo saxan ha laygu xukumo haddaa dembi leeyahay anaa diyaar u ah dembiga in layga jaaseeyo haddaana dembi lahayna in la ifasaxo oo aan la siyaasadeen oo maxay ahayd nafsadeeda lagu xadgudbin intaasaan waan garsoo codsanayaa waana mahadsan tahay